السلام عليكم soo dhawaada mar kale muuqaalkan maanta waxaynu ku eegi doonaa qabiilka ugu weyn ee ka hadhay qabiilada ugaarsatada iyo qaraabsatada ah ee adduunka oo dhan iyo gaar ahaan Afrika ninkan ayaa maanta soo booqanaya isagoo la qaadanaya waqti gaadhay 8 saacadood si uu la soo ugaarsado haddaba ragga ugaarsatada ee qabiilkani waxay adeegsadaan hub iyagoo ay gacantooda ku samaysteen si ay ugu soo ugaarsadaan xayawaanada ay ugaarsanayaan wax walba ay soo ugaarsadaan mid kagama tagaan ee xataa lafooda ay feentaan maalinta hadday waxba soo ugaarsan waayaan taa macnaheedu waxay la mid tahay wax cuntaa ma helayaan sida darteed waxay ku qasban yihiin si ay u noolaadaan inay wax soo ugaarsadaan ninkani sida inoo sheegay 3 cisho soo socda wuxuu ka fogaanayaa magaalooyinka casriga ah waxaanu la noolaanayaa qabiilkan isagoo sidoo kalena waqti gaadhay 8 saacadood oo xiriira dadkan raaci doona si ay u soo ugaarsadaan marka laga tago maalmo caadiga ah ee uu la joogo sababta uu sidoo sameynayaan wuxuu doonayaa inuu tijaabiyo bal inuu badbaadi karo marka uu dadkan ugaarsatada raaco ama uu adkeysan karo noloshan adag ee duurka markay soo dhaqaaqaan 4 saacadood ay soo socdaan wadooyinka rafka ah waxay ugu dambeyn soo gaarayaan qabiilkan safarkan waxa ku weheliyay ninkan oo Muuse lagu magacaabo dadkan nagu soo akoray oo turjumaan u noqon doona ay sidoo kale kameramaankiisa fiidiyoga ka duubi doona marka ugu horeysa uu qabiilkan sida uu soo gaadhan wuxuu salaamayaa raggii meesha joogay to say hello they say ana iyagu qaab gooni oo iska afkartan ay leeyihiin salaantooduna waa noocan hello to say hello they say ana bawa ana magogo ana abe ana can do that no waxaan weydiinayaa ninkani marka ugu horeysa inay wax soo ugaarsadeen maanta ninka kale ayaan u sheegay inay shalay tolo soo ugaarsadeen xayawaanka baabuunka lagu magacaabo oo Soomaaliya aan ku garanayn magaciisa laakiin dhamaantii way wada cuneen ayuu oranayaa shalay tolo mariyeen madaxyadii oo geedaha saaranayeen arkay imanka sidoo kale raggan iyaga ka tirsan waxay soo qaadayaan madaxyadii iyagoo sameynay sidoo bahalku ciidii markay qabanayeen tan muujinaysa inay ku faanayaan inay soo qabsadeen dhanka kalena waxaan arkaynaa hilibkan ay geedaha ka soo laalaadiyeen oo qaabkan muuqmada u qalajinayo u qalajisanayaan si uu ugu qalalo oo ay maalmaha soo socda u cunaan haddaba ninkan waxa uu la yaabayaa dadkan luqadooda waxaan oranayaa luqadoodu ma luqadan codka kaligta sameynaysa oo kaliya mana luqad kale ku hadal ninkan uu turjumaya Muuse wuxuu sheegay in sidoo kale ay ku hadlaan xoogay Sawaaxiliya oo luqadooda labaad u Sawaaxili yahay What's up, man? I guess that means how you doing? qabiilkani sidaynu hore u soo sheegnay waa mid ka mid ah qabiilada ugu waaweyn ee weli ku tirsan ugaarsiga iyo qaraabsiga haddii maalintaani waxba soo ugaarsanna waxba ma cunayaan weliba qaraabsiga waxay kaga badan yihiin ugaarsiga oo har iyo habeen waxay raadinayaan hilib ay cunaan qabiilkan waxa la sheegaa in qoyska Tansaaniya ay ku noolaayeen waqti ka badan 50,000 oo sanadood luqadooduna waa mid 100% iyaga u gooniya codka ay sameynaysan waa codka aan hore u soo aragnay sidoo kalena qabiilkani waa qabiil reer guuraa ah oo meel kaliya ma degana markasta way guuraan si ay u raadiyaan cunto biyo iyo hoy ay galaan dadka nimanka tiradooda waxay ka yar tahay 1,000 qof markana waxa uu soo galaya qaybtii dumarka sidoo kale wuxuu la yaabayaa ninkani in ragga iyo dumarku aan isku soo dhawaanayn oo laba meelood oo kala duwan ay kala galayaan ama ay kala fadhiyaan sida wiimankana tusayna dumarku waxay iskala fadhiyaan ciyaalkoodii ragguna dhinaca gooni ay fadhiyaan oo xataa isla hadlayaan qabiilkani ma laha nin u madaxa amaba hogaamiye ma laha waxaana sidoo kale ninkani nala wadaagayaa inaan weli arag intii uu qabiil booqanaya Afrika qabiil sidan oo kale bilaa hogaamiye ah oo cid hogaamisa ma jirto dhamaantood way wada dhex joogaan sidoo kalena maadaama ay cawaan yihiin qabiilkani waxyaabaha imka adduunka ka jira amaba lacagta waxaas ma isticmaalaan dhulkan ay ku nool yihiin iyaga wax walba waa dhanka kale marka la eegayo dumarka qabiilkana celcelisaan waxay dhalaan 4 ciyaal laba kamid ayaa badbaada maadaama nolosha ay ku nool yihiin ay nolol adag tahay carruurta yaraanta ku dhimata aad bay u sareysaa
marka dambe waxa uu waraysanaya wiilkan qabiilkan ka tirsan ee ah ninka kaliya Ingiriiska ku hadla maadaama magaalada loo diray oo wax soo bartay waxaanu sheegay in hooyaday magaalada u dirtay si uu Ingiriiska u soo barto ama aqoon soo yeesho wiilkuna waxa uu sheegay in qabiilkiisa uu soo booqdo fasaxyada waxa uu weydiinaya ma isku dayday qabiilkaaga inaad magaalada soo tusto waxaanu sheegay inay diideen oo wuxuu tusayaa ninkan kale oo isaga uu magaalada geeyay laakiin markiiba isaga soo cararay sababta ugu weyn ee uga soo cararay markay weydiiyaan wuxuu oranayaa halka wax hilib ma yaalaan maadaama dadkan ay hilib barteen xayawaankii imika ay soo gaarsadeen in hilibkiisa kale ma haysan oranaya sidoo kale daanyarada ay cunaan hilibkiisa magaalada waan ka waayay ayuu sheegaya sidoo kale waxa qosol kale ninkan uu sheegay ninkan waxa weeye inaanu aaminsanayn diyaaradaha ay bilaadanka kale iyaga ka baxsan ee adeegsadaan laakiin markii dambe markii si cad loo tusay iyadoo cirka maraysa uu wax yar aaminay laakiin ilaa imika aanu liqsanayn diyaaradda dadku raacayaan waxaanu aaminsan yahay haddii ay magaalooyinka caadiga tagaan inay dhimanayaan sida darteed magaalo iyo waxa ma rabaanba sidoo kale maxaa ka farxiyo ku oranayaa isagoo sheegaya markaan ugaadhis tagno ee waxaan ugaadhsanaan ku soo guulaysanaan soo qabsano markaasaan faraxsanahay laakiin haddaan waxba soo weyno ma faraxsanin qolo walba iyaga waxa u daran waxa weeye waxa ay qabtaan inay ku guulaystaan sida darteed ninkan ugaadhstada isagoo ugaadhsigiisaas u daran sidoo kale waxa ka sii daran boo qosala ninkan waa nin aad u qosala aad baan ugu qosla aniga horto waxa uu qoranayaa dad badan oo ka soo jeeda wadankayga wuxuu jeeda Mareykanka ama gaalada cadcad markay arkaan idinkoo wax ugaadhsanaya oo xayawaanadan laynaya way ka xumaadaan oo waxay jeclaan lahaayeen inaad iska daysaan oo xayawaanka badbaadisaan sidaad u aragtaa arrinta ayuu qoranayaa isagoo reaction-ka bixinaya anuu reaction-ka yey madaxu qabsanaya waan ku qoslayaa waxaan qoranayaa anaga gebigaygu ugaadhsigaasaan meesha u joognaa waa waxaan ku noolnay iska daaya macaqliba iskama dayn inuu ku leeyahay waa waxaan ugu jecelnay inaan cunno ragga ugaadhsatada ee qabiilkan iyagaa samaysta hubkooda sidaynu ka arkayno waramaanta wax walba waqti ayna ku qaadataa si ay leeb iyo qaansada u samaystaan iyo waramada dhuudhuuban ee ay samaysanayaan ee qoryaha ay ka qorayaan kan yar ayaan u kala sharaxaya waramada iyo qaabka ay u kala isticmaalaan noocyo kala duwan ay sameynayaan xayawaanada ay u kala talagaleen kanoo kale wuxuu sharaxayaa in shimbiraha uu ku ugaadhsado sidaynu ka arkayno wiilkan yar kan yari durta wuxuu khabiir ku noqday ugaadhsiga sidaad ka arkaysana waramado dhan uu wada sharaxayaa sidoo kalena waxay sameynayaan marka ay waranka ka taagaan codka ay sameeyaan xayawaanadu dhammaantood uu wada sharaxayaa hubkao dhan xataa wuxuu tusayaa leebabka qaar leh sun oo loogu talagalay xayawaanada waaweyn sida dameer farowga way ugaadhsadaan dibiga jaamuuska ee madaxa weyn way ugaadhsadaan kuwa waaweynna kuwa suntale ayay u adeegsadaan sidoo kale sidaynu ka arkano ninkan yara dhalinyarada isaguna waxa uu samaynayaa falcelinta ay sameeyaan marka ay xayawaan qabsadaan ee ay farxaan xaaladda kama qasanaba madaxa u degan waxaanu ka odhanayaa xataa beritoole markaadna raadad arki doontaa sidaan wax usoo ugaadhsanno ninkana marka dambe waxay barayaanba qaabka codkooga loo sameeyo amaba loogu dhawaaqo sida aynu halkan ka arki karna ninkan ayaa tusaya ninkii yaraa dhalinyaradaha ayaa mar isku dayaba inuu shimbir ugaadhsada laakiin uu la waayaya si aynu u jeedno shimbirtuna way iga duushay odhanaya markan waa la waayay waa nasiib xumahay isagoona intaa wixii ka dambeeyay ninkani jawi iskala qaadanaya qoladan oo iska dhex fadhiya waanu iskala sheekaysanayaa sidaynu halkan markan u jeedna ninkan waxa uu isbarbardhigayaa gacmihiisa iyo gacmaha ninkan cad gacmaagu aad bay u cadcad yihiin sidoo kale timaya ka buuxa ayuu odhanayaa sida bahalladaan ugaadhsano oo kale baabuunka loo yaqaano dhanka kale marka dambe waxa uu soo saaraya filtarada mobilkiisa ku jira isagoona ujeedooda ku qabanaya filtarka siday ku noqonayaan aadayna ugu qoslayaan maalintaana sidaas ayaa cadcayd ku dhacaysa waanu sii macasalaameynaya habeenkiina waxay iska dhex seexan doonaan taanadoodii yareed ninkii kamaramaanka ay isagu roob ayaana sidoo kale kasoo daaya All right. I hope that centipede isn't in here. Stop. subaxii markii soo toosana ninkan waxa uu inoo sheegaya in roobkii ku soo daayay oo alaabtooda ka qooyey xaloo dhanna uu roob ku daayey markay soo kacaana maanta waa maalintii ugaadhsiga ay tegayeen u raacayeen ragga ay ku kala hayaan 6 subaxnimo iyadoon gaadhinba
waxayna u tagayaanba iyagoo shimbir yar iska dubanaya oo diyaara si ay ugaadhsiga u tagaan salaada hore. Ape Farango. Alright, within seconds of us. dhammaantoodna way iswada raaceen si ay ugaadhsiga u tagaan iyagiiyo ciidoodiiba way ka haysteen. ciidina waxay ka caawisaa inay waxyaabaha xasaasiga oo dhan uriyaan sidoo kale waxyaaba ay qaban karayaanna ay qabtaan. dabcanna sida ninkan turjumaanka ee muusuu sheegaya subax walba ugaadhsigan way tagaan. shantii mirre ugu horreysay ugaadhisigana shimbirta yare ay soo qabsanayaanba ugaadhisigana way soo wadayaan sidaan u jeegina ninkan wuu xiiqayaa maadaama uu la cararayo mararka qaar kamaradna uu sito. sidoo kale sidaan halkan uga jeedna xayawaanka kale ee geedka saarana ninkan ayaga ka soo wada qaadaya ugaadhisigoodina ilaa imka labadan xayawaan ay qabsadeen shimbirta iyo baalkaas. kaymaa la dhex jibaaxaya ninkan qodaxa iyo waxaasaa mudmud gaadhiyaba maadaama meelo geeda aad u ciriiriya laga dhex baxayo. iyagoo sida kaymi u soo dhex qaadaya waxay ugu horreyn arkayaan daanyeer geed saaran raggiina leeb yaqaan sida ayay ku ganayaan laakiin way la waayayaan. daanyeerka markan ma qabanayaan uu ka cararayaa kaymihi ayaana kusii soconayaan meelo aad u ciriiriya ayaa la dhex maraya sidaynu halkan uga jeedno. uu dhibban yahay ninkani raggan lama socon karo isaga iyo ninkii kamaramaanka ay la socday weyba ka dheereeyeen oo kolba way ka libdhayaan marka dambena markay soo gaadhaan ee xoogay ay kasii horreeyaan waxay arkayaanba iyagoo jabsaday meel shinni malab ku samaysatay oo malabkii cunaya. markay soo gaadhaanna malabka ayay wax ka siinayaanba way la cunayaan. This is so good. It's like it's so good. Yeah, it's great. Yeah. sidoo kale geedka dushiisa ayay ku arkayaan xayawaan yaroo kale oo ay kasoo ridayaan oo ay ku ugaadhsanayaan. raggani ma istaagayaan ilaa ay soo qabsadaan maanta daanyeer laakiin labada nina kale way dhibban yihiinba iyagu way daaleen. sidoo kale raggani kolba way ka dheeraynayaan oo dirqa bay ku soo qabanayaan marka dambe xayawaankan oo meel ku baktiyay ay arkayaan laakiin lug bay ka goosanayaanba 3 cisho ka hor bahal baktiyay bay lug ka goosanayaan. sida uu ninkan iminkayna tusayana 11kii subaxnimo weeye 5 saacadood bay imika ugaadhsinayaan wax ay raggan daba cararayeen wayna daaleen xayawaan weyn ilaa imka may soo qaban sida baabuun ama midh daanyeera labada midna may soo qabsan waxayna go'aansanayaan halkay ka yimaadeen inay iskaga noqdaan maadaama ay daaleen 30 birro kale ayaa loo sii lugaynayaa. iminkana waxay gaadhay 7 saacadood halkan yar ay ku nasanayaan raggiina waxay moodayeen bayna ka horreeyaan laakiin way ka dambeeyeen shimbir yar ayay soo qabsadeen oo ay la imanayaan. waxayna u dhaqaaqayaan dhankii meesha ay ka yimaadeen ay ka xigtay ninkan wuxuu sheegaya inaanu dhaqaaqi karinba oo xataa meesha aanu gaadhi karin qaar iyaga ka midna waxay leeyihinba xayawaan kale ayaanu soo ugaadhsanaa oo dib ayaanu noqonanaa ninkanna waxaa ku adagba sidaanu wejigiisa ka arki karno inuu meeshii dib ugu noqdo oo lugaha go'ayaba sidaaynu aragnana markan way yara nasanayaan maadaama ninkan uu socon kari waayey waxayna bilaabayaan inay sigaarkooda iska cabaan marka dambena meeshooda ayay ku soo noqonayaan waxay dubanayaan wixii ay soo qabsadeen. That must be the cha-cha. laakiin kuwii ka hadhay ee xayawaanka kale soo ugaadhsanayay waxay soo qabsadeen ma baabuunka ay rabeen aad bayna wada farxayaan maadaama hilibkiisa ay aad u jecel yihiin baabuunka. bahalkii markiiba waa la qabtay oo haraggii baa laga siibay sidaan arkanana haragga ayaa laga siibay youtube-ka ma ogola dhiigan iyo waxaan sidaa darteed ninkan uu qariyey. Bile, stomach, intestines. sidoo kale sidaan halkan ka arkayno markan waxay tusaan sida dabka loo dhaliyo 20 sekan gudahood bay dabka dhalinayaan waxaan bahladii baabuuniskiina madaxooga ay qabteen macal madaxa kama tegayaan gebigoodaba way cunayaan imaka sidaan arkayno madaxiiba diirka laga siibayaa sidoo ninkan u turjumaya muuse lagu magacaabo sheegay baabuunka waxay jecel yihiin hilibkiisa oo hilibyada ugu macaan ugu jecel yihiin weeye sidaa darteed midhka ma tagaan isaga bahalkii way karinayaan qaarna way dubayaan waxay soo qabsadeen oo dhan.
halkiiba lagu wada cunaya xataa raggan waxbay siinayaan oo hilibka baabuunkii bay dhadhansiinayaan wadnihiisa oo la dubay sidaan ka arkaynana iyaguna madaxay degsanayaan hilibkii si adduun bay u cunayaan madaxyada la kariyay sidoo kale ku oranaya cuna laakiin raggan way ka wasuusayaan madaxyada ninkii la socday Muuse ku magacaabay isagu waxaan ku wasuusay wuxuu ka oranayaa isku cunina waxaan kula talinayaa inaan cunin maadaama aan fresh hay waxaan unaad ka qaadi kartaan iyagu way la qabsadeen waxaan si dheeliya cunaan noloshooda caadigeeda maalinlahayd way noloshan enje ton chache ene aha komana bamiyama kwang wa ihe puna abi ami isho ekesea markay cuntada cunaanna caday ay qoranayaan ma ninkana caday bay qorayaan waxayna tusayaan sidoo kale waxay ku cadaydaan dheecaankan caday geedka ka soo yaca ayay dawada cadayga oo kale ka dhiganayaan cadaygan halkaas ay ka samaysanayaan qoryahan marka ugu dambaysa muuqaalka waxa uu weydiinayaa sidee u arkaan marka ay qof cad arkaan ama nin cad ama markii ugu horreysay arkeen nin cad siday noqdeen sidaan arkana kan yar raashiga uu sameeyey geedka dabadiisa uu galay sidaasoo kale ayay noqdeen ama geed bay koraan buu odhanayaa wiilkan kale iyaga ka mid ee ingiriisiga garanaya ayaa u sharaxaya markii gawaadhida maqlaan ku soo socota ee qof cad ay arkaan geedahay korayaan laakiin haddii loogu yeedho magacooda way soo degayaan oo caadi bay noqonayaan mararka qaar sidan uu cararay ayaan u yacnaa bay idhahdeen maadaama dadkan cadaanan waxay yiin garanayn markana waxaa arkayaaba iyagoo sheekaysanaya oo ninkii yaraaye iyaga ka tirsanaa la sheekaysanaya sheekay u sheegaya waxayna kodhanayaan ninkani markuu subaxiin raacay waxay ku sheekeynayaan inuu geedaha ka hoos bixi kari waayey oo ay ku maadsanayaan waxaana sheegaya inuu aad u daalanaa horintooda ayuu ku odhanayaa xataa sidaan arkanay sida u gurguurinayo kale ayay samaynayaan sidaasoo kale u gurguurinaya ayay odhanayaan raggan cadcad iyagu way la yaaban yihiin boqoladan inta 6 subaxnimo guryahooda ka baxaan kowda doornimo soo noqonaya intaana cararaya wax soo ugaadhsanaya leeb iyo qaansaganaya way la yaaban yihiin awoodooda ugu dambeynta muuqaalka gabagabadiisana gabadhaca ninkan waxa uu doobaya iyagoo jaasaskoodii caadiga ah iska samaynaya sidoo kalena waxa uu sheegayaa dunidan casriga noqotay in qoladan ay noloshan oo kale kaga nool yihiin iyagoo noloshooda ay sidaa u adagtay haddana farxad bay haystaan buu odhanayaa nolosha ay ku nool yihiin inkastoo adagtayna laakiin way ku faraxsan yihiin muuqaalkan halkaas ayuu ku egyahay haddaba haddii aad wuxuun ka faa'iiday fadlan subscribe noo saar muuqaalkana like saar aad baad mahadsantiin